bismillaahir rahmaanir rahiim daawadayaal qodobada wararka tahmiidi oo idin hayo waxa kamid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo hambalyeeyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo la wareegay deegaano horle oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose hooyo Soomaaliyeed oo ku umishay isbitaalka SOS oo cunugeedii laga xaday iyo maamulka isbitaalka SOS oo iska fogeeyay falkaasi cunuga lagu xaday safiirka cusub ee dawladda Ingiriiska u jooga Soomaaliya oo sheegay xiriirka dawladaha Ingiriiska iyo Soomaaliya inuu si hagaajinayo taliyaha ciidamada militariga Soomaaliya oo sheegay al-shabaab inay ka xoreynayaan guud ahaan dalkeena Soomaaliya madaxweynaha dawladda Soomaaliya oo la kulmay qaar kamid ah ardada wax ka barata magaalada Muqdisho akhbaaraadka dibaddana waxa kamid ah dad careysan oo iskugu soo baxay fagaarooyin waaweyn oo ku yaala dalka Liibiya oo ka soo horjeeda madaxweynaha dalka Mareykanka iyo dad ka badan 13 qof oo maanta lagu dilay dalkaasi Mexico intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warkeena ugu doorka roona u diyaar garooba warkaas oo dhameystiran madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu hambalyeeyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo la wareegay deegaano horle oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa la wareegay tuulooyin dhowr kiiloomitir u jiro deegaanadii shalay uu tagay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya deegaanka ay la wareegeen ayaa u dhow Sabiib iyo Caanole oo ciidanku ay ka furteen al-shabaab madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in hadda loo baahan yahay ciidanku inay muujiyaan cududooda isla markaana ay dadka Soomaaliyeed tusiyaan geesinimada lagu yaqaanay ciidanka xoogga dalka madaxweynaha ayaa u sheegay ciidamo aad u fara badan oo joogay jiida hore inay yihiin ciidamo kartile oo dadaal dheeraadna la soo bixi kara haddaad soo jeedaan oo u diyaarsantihiin inaad difaacdaan shacabkiina inaad difaacdaan idin soo bawacdhigi maayaan waa fulayo waxay yaqaanaan inay shacabka qarxiyaan inay caruurta laayaan laakiin wiilal idinkoo kala ah marna hortiin ma imaanayaan mana idin soo wajahayaan maxaa yeelay waxay og yihiin inaad la hortaagan tihiin geesinimo magaaladan kama tagayno kaliya maaha waa soconeena waxaan ugu tagaynaa meel kasta ay joogan annaguna waa idin garab taaganna ma maqlaysaan annaguna waa idin garab taagannahay waa idin soo boqonaynaa ciidamo kale idin ku soo kordhinaynaa waa bacsanaynaa ilaa ay tirtirmaan marna ma yeelayno marna ma u dul qaadanayno inta ay meelahan ka tagaan oo ay ku samaystaan wixii la qarxinayay oo ay maatida iyo caruurta ay maxaan ku raadaan ku laayaan hooyo Soomaaliyeed ayaa cunugeeda looga xaday isbitaalka SOS ee magaalada Muqdisho maamulka isbitaalka SOSna waxa iska fogeeyeen falkaasi foosha xun ee ka dhacay isbitaalkooda dhacdo xanuun badan dad badan galgashay naftooda ayaa waxay qabsatay hooyo Naciima Maxamed oo maalinimadii Khamiistii ahayd wiil ay isbitaalka SOS ku dhashay looga xaday saacado un kadib markii ay dhashay cunugan yar oo wiil ah ayaa la xaday maqribkii habeennimadii Khamiista ahayd waalidiinta dhibkan gaaray ayaa keen u sheegay in xilliga la xadayo wiilkan yar hooyo Naciima yahay mid hurdaysa isla markaana laba gabdhood oo la joogayna ay aadeen tukashada salaadii maqrib markii ay soo laabteen ay waayeen cunugii yara isla markaana dhalnaa wax ka yar 48 saac waxa keen ugu waramay dhacdadan Mustafa Maxamuud oo ah aabaha dhalay wiilkan la xaday subaxnimo ijaariya zikri iyo raashinka wadiya meesha keenay marka meeshii gabartii way fadhiisay bacbaashiyoon iyo backalo aad ilmaha bacda madow ilmaha uu qabtay ilmaha dhalo bacdaas ay ku fadhiisay marka meeshii joogtay marka waxaan leeyahay aniga dadkii waxyaabaha jira joogta marka gabartaan dii saalada la soo bixiyay meeshii la keenay isla markiina fadhiistay gabarteeda jishuayna dhaway gabarta ka dhinaceeda ay fadhiisay gabarta marka saan galaw indhaha ay koray iyo fiiriyay waxaan dhaxoogay inay waqtaado cidahan inay la joogtaa ama qof bukaan inay la joogtaa daawada marka gabadha wax wareegto karto gabar wiil iska dhaaf ogaadada wiil isku fiican inuu fahmo afka la galaan marka goobta dheer mar hadda saasi soo fiiriyay arkay aniga cidiya xeetood habeenka cashada la kala qaadi lahay camalaan doonay gabarta iyadoo fiican ka tagay wiilkii meesha uu joogo cidi ay joogaan meesha ka tagay marka hadii xaafadda cashada soo qaadi lahay marka camal markana waa la soo wacay marka hadii la soo baxay la soo wacay waxa la yiri wiilkii la qaatay marka meeshii ka soo cararaan isbitaalka imaadana waa وحشيرها ولا ودا ميلها بيرتين سمر يحتاجها ولا غير استاجا بيرتين في حياتها ولا ولا ميلك سمر بيش لما وقله وحنا كل غالها نحاول عليه سينا أنا وقعد يجي سينا نجينا ميلك أو آخر هذا
dad badanaa joogeen dadka marka waxay dhaheen gabartan xeeto meesha fadhiso waxaan u maleeyahay inay idinka la socoto oo qof ku soo dhawaanayso sariirta dhinacaada fadhiso in ay ku socoto waa loo maleyn karaa oo dadka dhinacaada jooga saas u maleyn karaan dad bukaan oo mugtahay wallahi ilaa hadda wax rajaamahay in wax kasta waa qadar Allah waxaan waa wax Ilaahay keenay marka ma la yaabayo waa laakiin waxaan la yaabanahay xeeto la yacaas iyo waxaa la yaabanahay si intaas saas xoogay wardiyaasha iyo dadka ugalayso lagu baarayo tuuriyo wax laga baarayo ciidamada booliska Soomaaliya ayaa arintan ku jira sida ay noo sheegeen waalidiinta waxaana ay aad rajo xumo uga muujiyeen sida ay cunugooda ku heli doonaan oo labada waalidba waxa curad hooyo Naciimo oo qalin martay markay ay cunuga dhaleysay ayaa sidoo kale la sheegay inay wajahayso xaalad kale oo aad u adag taasi oo ah xanuunka ay dareemayso cunugeeda laga xaday Muqdisho ayaa dhacdooyinka noocan oo kala ah in xadinta gaarka leh mudooyinkii dambe waxay ahayd mid ay ku soo badanayeen taliyaha ciidamada militariga Soomaaliya General Daahir Aadan Cilmi Indhaqarsho ayaa sheegay al-shabaab inay ka saari doonaan guud ahaan dalkeena Soomaaliya Indhaqarsho oo la hadlayay ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan militariga ayaa sheegay saraakiisha ciidamada militariga madaxweynaha jamhuuriyadda iyo guud ahaan shacbiga Soomaaliyeed inay wax wanaagsan ka filayaan ciidanka militariga Soomaaliya oo looga baahan yahay dalkan al-shabaab inay ka xoreeyaan General Indhaqarsho ayaana hadalkan ciidanka u jeediyay sharaf bay idin tahay in madaxweynuhu idinku soo booqdo idinkoo difaaciina hore iyo bartii hore jooga runtii waa wax markasta aan la heli karin oo taariikh ah marka waxaan aad iyo aad idinku boorinayaa inaad ka dhabaysaan rabitaanka iyo waxa la idinka filayo dhammaan madaxweynuhu idinka filayo annaga idinka filayno dhammaan xoogga dalka Soomaaliya idinka filayo ummadda Soomaaliyeedna idinka filayso dadka magaaladan jooga dhibaatooyin badan baa ku dhacday 10 jeer baa unib waa ka noqonay marka ma noqonayn lagama yaabo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Daahir Aadan Cilmi Indhaqarsho ayaa waxa uu imaanaya iyadoo ciidanka xoogga dalku ay dardar gelinayaan howlgallada ay ka wadaan gobolada dalka gaar ahaan gobolka Shabeellada Hoose oo ay deegaano hor leh ka qabsanayaan maalinta ka dambaysa boqolaal dibadbaxayaal ayaa maanta waxa ay dibadbax ka dhigeen magaalada Tripoli ee dalka Liibiya dadkaasi banaanbaxay waxa ay ka cabanayaan dhibaatooyin ay sheegeen inay ku hayso dawladda Mareykanka sawirada madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump ay ku gubeen goobo fagaara ah waxaana ay ku eedeeyeen qaska ka taagan dalka Liibiya inay ka dambayso dawladda Mareykanka ayaa galaangal ku leh dalkaasi Liibiya oo ay hogaamiyayaal kala duwan ay hadda hogaaminayaan jamhado jooga caasimadda iyo magaalooyin kale oo waaweyn magaalada Benghazi iyo magaalada caasimadda ah ee dalkaasi Liibiya Tripoli ayaa hadda ah mid kala go'an oo laba hogaamiye ay kala haystaan banaanbaxayaashu waxa ay ku eedeynayaan madaxweynaha dalka Mareykanka in dhibaatadaasi uu ku lug leeyahay waxaana la xasuusan yahay madaxweynihii hore ee dalkaasi Liibiya Muammar al-Qaddafi in dawladda Mareykanku ay weerartay oo ay dishay kadib markii jamhada ay ku kicisay duqeyn diyaaradeedna ay u geysatay dalka Mexico waxa lagu soo waramayaa 13 qof inay ku geeriyoodeen kadib markii dilkaasi uu ka dhacay hal goob wararka la helayo ayaa sheegaya 13 kaasi qof ee geeriyooday dhammaantood inay ahaayeen dad hal goob ku wada sugan war wixii dalka iyo daafihiisa inaga soo gaaray oo aad kala socoteen tahmid iyo ciyaartiina dhageysatay waa naga intaa